ما شاء الله. بارك الله فيك شيخنا الفاضل وزادك الله تقوى. إلهي سبحانه وتعالى خير بدن هكسيو. كلمة هسيا نتشي سي الله سبحانه وتعالى نجي لكو دقن جلية ولي كو عمل فلا إن شاء الله بإذن الله الكريم. والله يلوحة كتيرتان إن شاء الله تعالى برنامج كيني ناس سعودي برهذا سار every Saturday وأنقلت لي تلو مقادا يا محمد شيخ حسن أبو دلحة مرة واحد كسودرستان أبو دلحة 1@gmail.com إن شاء الله تعالى مالو البوسار دي ساعد مركز 2 PM Central أيها اللي ذيك جواب دون هدي الله سبحانه وتعالى ويراد إن شاء الله. برنامج waxay la daadahaynayaa walaalkay Abu Dacwa weeyaan iyo xagga farsamadan waxa loo joogaa Engineer Umar Aadan weeyaan insha Allah biidin Ilaahay Kariim iyo aniga oo Fawzana. qofka ugu horeeya ee talraajka ah Sheekh Faadil waa hooyo weeyaan. hooyo aad u murugaysan. hooyo mar walba waa murugaysan tahay. hooyadu waxay leedahay dhibaato ayaa ay haysatay. dhibaatadu waxa weeyaan waxay tiri waxaan haystaa 4 caruura. nin hore ayaan waxaan soo dhalay bay tiri 3 caruura oo hore waa kala tagnay. caruurtaasi waxay tiri anaa mataqaanayay soo korsaday meel walba la soo maray baraf iyo mataqaanayay halag oo dhanba bay tiri. kadib muddo kadib waxay tiri nin kale ayaan guursaday. ninkii kale waxaan u dhalay bay tiri hal wiil baan u dhalay. marka ninkii kale baa hadda waxa uu yiri magaalo kale ayaan u guuraynaa ma dhaqaale ahaan oo kale. caruurta oo dhan kulli waan wada kaxaysanaynaa buu yiri. yani wiilka ay isaga u dhashay iyo caruuraha kale ee uu mataqaanayay ninkii hore ay u soo dhashay. ninkii hore oo caruurtaan aan waxba igala qaban bay tiri ayaa igu soo rogaal celiyay oo wuxuu yiri haddii aad adiga ninkaan caruurtan magaalo kale ula guuraysaan daanu waan kala haraya caruurtaas. waxaan ogahay bay tiri ninkaasi caruurtaas inuu dayacayo laana markii horeba waxba iguma tarin aniga ayuunbu igu canaadaya. marka xaalad ay taagan tahay bay tiri in caruurtaasi aan dayaco oo ninkaasi mataqaanayay aan kaga tago iyo aan ninkaygan dambe wiilka aan u dhalay aan runaantii kuna degay aan waayo. labada talo ayaan u dhaxeeyaa Abu Dalxow maxaad igula talinayd leedahay fadlan mashkuuran wa maajuura. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعد. horta hooyada kurbada iyo walwalka iyo walbahaarka laba dhabanaynta ah ee labada dharbaaxe ee labada dhinac kaga socota Ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ka faydo. hooyo 4 caruur labaan ahay 3 aabaan u dhalay gooni awuu ifuray waxna iguma tarin. nin baan guursado wiil baan u dhalay. meesha aan degannahay baan rabnaa inaan meel kale oga guuro. ninkii hore markuu maqlay buu igu soo ragaal celiyay asagoo leh ilmaha waan kaala harayaa. masalada noocana waa mas'alo horta u baahan dhinac islaax. mas'alada qaybteeda koobaad oo ah ninkaa waxba iguma tarin sidaad u tidhi un baan annagu u maqlaynaa laakiin maxkamaddii ma nihin. siday tahay xaqiiqadana alla ayaa garan tabaaraka wa tacaala. haweenka waxaa caado u ah gabarh baa kuu imaanaysa horay loo soo furay markaase waxay ku leedahay sheekh oo mid inkaar qaba ayaa caruur aan u dhalay ilaahay baana iga furfuray. aniguse maanta waxaan doonayaa nin wanaagsan inaad maxaa la yidhahdaa iikan aan guursaday igu caawi. ninkii baad arkaysaa laftiisa wuxuu ku leeyahay nin mid inkaar qabta ayuu ilaahay qoorta ii suray. ilmihiiba iga xarimtay way i dhibtay. hadda waxaan doonayaa mid ducaysan oo hooyadeed u ducaysa. xaaladaha noocan oo kalea waanu haynaa. horta midda koobaad ma sallimayno oo maxkamad ma nihin oo ninkaasi inuu ku dhibay oo waxba ku siinin annagu ma ogin. laakiin warkaaga haddaan guud ahaan qaadano oo sa ay tahay caruurta asagaa dhalay kor iyo hoosba xuquuq ayuu ku leeyahay. xuquuqdiisi inuu sheegtana xaq buu u leeyahay. ama dawlad ha uga soo goyso ama maxkamad islaam ha xukunto ama dad qaraabe iyo qoysaba ha xukumeene. talada aan ka bixin karo marka waxaa weeye waa talo u baahan xeer iyo maxaa la yidhahdaa gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaa iyo ninkan iyo qaraabadii iyo in lala hadlo siday noqon kartaa
iyo xog ogaalnimo maxaa saxa maxaa khalada ayay horta masalo dhinaca oga baahan tahay. hadduusan ninkii ku yidhaahdo carruurtayda inay iga fogaadaan ma doonayo, xaq buu u leh. waayo nin walba wuu doonayaa ilmihiisu inayna ka fogaanin. haddanana zawjkaaga dambe inaad ateecdo xaq baad u leedahay oo dhaqaalihiinni baa meesha ku jira. ninkana carruurtiisu inayna ka fogaanin xaq buu u leeyahay. maxaa yeelay wixii idinka dhexeeye waxba iguma tarinba xagga dhigo. carruurtii waa dhalay waana kanoo waa jecel yahay inay ka fogaadaanna ma uu doonayo. marka mashaakilaadka noocan oo kale ah in si hoos oo gooni ah loo xalliyo waa masale muhiima. waxaanse aad kuu dhihi lahaa oo warkayga aan ku soo aruurin lahaa, aan ku soo koobi lahaa, ninka si wanaagsan ha looga dhaadhiciyo, qaraabi iyo qoysna ha loo soo kaxayso, culummada meesha joogtana ha loo sheego, duruuftana ha la qadariyo. hadday duruuftu noqoto reerkani noloshiisu halkan sax kuma aha oo noloshii iqtisaadiga oo dhan baa ku baaba'aya, waxa weeyaan waxaa laga yaabaa marka in la yidhahdo tayib, gabadhana ilmaheeda ayadaa korsanaysay, haddana korsata, mana dayacmayaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala. waxaa laga yaabaa culummada marka inay ku dhahaan tawakkal cala allah. haddii kaloo ninkaa ay caddaato inaad ilmaha ka fogeynayso oo aad kala fogaanayso oo labada nin ay kala masayrsan yihiin oo aad doonaysa labada nin inaad kala fogeyso cillada hadday tahayna waxaa laga yaabaa in lagu yidhahdo xaq ooma lihid ninka carruurtiisa inaad ka fogeyso meel ay iska arki karaan, aabbahoodna ay ka arki karaan ha joogeen in lagu dhaha ayay u badan tahay. la tasho marka culummada iyo qaraabada. wallahu aclam.